بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا جنال كان هبال وادكلا سعوتان وربحينو iyo xogo xasaasiya. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar, sidoo kale riix gambaleelka si aad ula socoto muuqaalada markaan soo gelin, sidoo kale like iyo share nagu sharaf. ti wanaagsan Ramadaan Kariim daawadayaasheena bartaan YouTube-ka ku leenahay ee hubaal kusoo dhawaada mowduucan kaga hadli doono sirta guusha nolosha. Sirta guusha nolosha waa hadba sida aad ula macaamisho caqabadaha ku soo wajaha iyo casharka aad ka baratay wixii horay kuu soo maray. Waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa dhowr sifo ama dhowr tilmaamood oo ku caana sirta guusha iyo dulucda ka dambaysa. Qodobka koowaad waxa uu noqonayaa marka aad hawl qabanayso si cabsi la'aan ah u qabo. Haddii aad cid ama shakhsi ama koox ka baqanayso, way adag tahay inaad gaarto hadafkaaga, mana laga yaabo inaad hesho sirta guusha. Qodobka labaad waxa uu noqonayaa marka aad fikirayso, u fikir si hal abuurnimo leh. Waxaad u fikirtaa si ah maxaa cusub oo aan soo kordhin karaa, sidee waxa hadda yaala wax ka duwan u keeni karaa, ma jira wax muhiim ah laakiin aan horey loo qaban. Haddii aad sidaa u fikirto oo waa la yiri iyo ma la samayn karo aad meel iska dhigto, waxaad ku socotaa jidka sirta guusha. Qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa marka aad shaqaynayso, noqo qof dulqaad leh. Waynu ognahay dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka soo gooraya marka aad shaqo qabanayso. Shaqadu noocay doonto ha noqotee waxay leedahay caqabado ka soo wajahaya, waxayna mararka qaarkeed ku keeni kartaa inaad iska joojiso. Laakiin waxa laga maarmaan ah inaad dulqaad samayso. Xasuuso ereyada ah fulayo guuli ku dhaweyda. Wixii aan loo dulqaadan lagama gaaro markiiba ilaa aad ka leexdo ama aad ka kufto, haddana dib u kac. Ogow, haddii aad sidaa yeesho waxaad ku taagan tahay wadada guusha. Soomaaliduna waxay ku mahmaadaa haddii degdegsiyo door dhalaan, kaadsiiyana kiish lacagay dhalaan. Yacni waxa degdega lagu qabtaa ama degdega lagu fuliyaa haddii ay wanaagsan yihiin, waxa ka sii wanaagsan mar walba waxa loo samro ee soo raaga. Qodobka afraad waxa uu noqonayaa marka aad hadlayso, u hadal si daacad ah. Hadalladaadu waa inay asaas iyo run ku salaysan yihiin, oo waxyaabaha aad sheegaysaa waa in aad daacad ka ahaato. Laakiin haddii cid ku qancin ama raaligelin ka tahay, ama shakhsi ama urur aad iska dhaadhicinaysid, waxaad ku dambayn khasaaro, mana gaari doontid hadafkaaga iyo himilada. Dariiqaaguna ma aha midkii guusha ee waxaad haysataa mid kale. Qodobka shanaad waxa uu noqonayaa marka aad dadka la kulmayso, noqo qof qiimeeya dadka. Waxaa la hubaa inaad maalin walba aad eegto taleefankaaga, cidda ku soo wacda ama fariin kuu soo dirta. Sidoo kale haddii aad leedahay Facebook ama Instagram ama WhatsApp, waxaad eegtaa maalin walba cidda kaa soo falcisa wixii aad dhigayso, ama sawir ha noqdo ama qoraal ha noqdo. Laakiin su'aashu waxay tahay, maxaad nafsadaada u eegi weyday heerka ay taagan tahay? Oo haddii aad waddo sax aan ahayn aad ku socoto, maxaad uga qaban weyday noloshaada iyo naftaadaba? Haddii aad adigu qirato wanaagga dadka kale, waxaad hoggaankiisa qabatay mid ka mid ah dhabaha sirta guusha. Dulucda mowduuceena waxaan ku soo ururin doonaa, haddii aad gasho tartan lagu tartamayo baabuur oo aad la soo shirtagto baabuur cusub, oo weliba aad ogtahay arkaysana in baabuuro kale cusub ay tartanka kugula jiraan, waxa lagu kala guuleysto maaha dhaqaaqa iyo xawaaraha gaariga ee waa beddelka geerka, ama waa sida ugu habboon ee qofku u maamulayo wadida gaariga xilliga ku habboon. Marka shanta qodob ama shanta tilmaamood ayaan ku soo ururin doonaa mowduuceennii gaarka ah aynu kaga hadlaynay sirta guusha nolosha. Inahaasoo haddii aad ku dhaqanto joogtaysana wax badan kaa bedeli doona. Tan iyo kulanti dambe.
sidaas iyo nabadgelyo.